إذا الليل طاله بدا وجهه كفجر الصباح إذا يرسم. إذا الليل طال بدا وجهه كفجر الصباح إذا يرسم. وتلك الليالي في ثغره عقود الجمان غدت. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من التشبه بالكفار لما فيه من الضرر في الدين والدنيا، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala aan ka wada baqno cabsidiisii waa liibaanta adduunyo iyo midda aakhiro. saan wada ognahay diinteenna islaamka waa diin sharaf leh, waa diin aan laga saramaraynin. diin walba oo soo baxda cusub ama diimihii hore ha ahaadaano, diinta islaamka ayaa mar walbo ka saramaraysa. maxaa yeelay ilaahay qur'aankiisa ayuu ku ballanqaaday uu yidhi yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallaahu yutimmu nuurah walow kariha alkaafiruun. waxay doonayaan ilaahay nuurkiisa oo diinta ah inay afkooda ku damiyaan. afka wax ku damayana ma aha, ilaahay diintiisa wuu dhammaystirayaa. qofka muslimka waxaa waajib ku ah inuu barto diintiisa. nebigana sal allahu calayhi wasalama wixii loo soo dhiibay inuu barto. maxaa yeelay diinta toosan iyo jidka toosan waxaa laga qaataa ambiyada. ambiyada waxaysan keenin ma qaadan kartid. oo ilaahay wuxuu leeyahay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa. ilaahay diinta wuxuu idinkugu jideeyey nebi nuux, nebi ibraahim, nebi muuse, ambiyadii hore wuxuu u soo dhiibay ayuu idinkana waajib idinkaga dhigay inaad qaadataan, ma aha inaad ka leexleexataan. maantu waxaa mawduuca diiradda saaraynaa insha allahu tacaala akhlaaqdii iyo caadaadkii diinta islaamka ee nafartay oo in badan laga tegay, oo dib u garasho badan aan samaynay. dad muslimiin sheeganayo oo shanta salaadoodna tukanayaan, haddana muuqaalkoodii aanan u ekeen diinta islaamka sidee fartay. diintii islaamka waxayna fartay inaan gaalada ka duubnaano muuqaal ahaan mar walba. muuqaalkeenna waa inuu ka duubnaadaa muuqaalka gaalada. waxyaabaha aan samayno waxaa ka mid ah oo nebigana sal allahu calayh wasalam uuna faray inaan samayno oo gaaladana aan uga duubnaano: garkii la deeyo, shaarabihii la gaabsado. waan bedelnay annaga, garkiiyaan xiiranaa, shaarabihiyaan daysanaa. waana amar ka soo baxay nebiga sal allahu calayhi wasalama oo uu yidhi xadiid uu warinaayo ibnu cumar. nebi sal alay slam wuxuu yidhi wafiru llixaa waxfu shawaarib. garka ha la daayo, shaarbahana ha la gaagaabiyo ama ha la xiiro. waxaan ku daysanay dad aan mudanin in lagu daysado. maxaa yeelay nebigaaga muxamed sal allahu calayhi wasalam axaadiista laga soo wariyey oo dhan, saxaabadii ka soo wariyeen dhammaantoodii waxay sheegeen nebi sal alay wasalam inuu gar lahaa. adigna nebigaagii sal alay wasalam inaad u muuqato waa waajib, ma aha xitaa wax lagaa baryaayo, wax oo caado ah laga tegi kara ma aha. maxaa yeelay sheega sunnada ah waxaa caddeen iyo daliil u ah inay waajib tahay in la qaato. nebigu wuxuu sheegay dadka haddii ay ka wada tegaan wixii, waxaa meesha ka soo baxaya inay waajib tahay. waxyaabaha gaalada aan iskugu ekaysiinay waxaa ka mid ah dhallinyarada u badan maanta oo nala joogto waddanka. waxay samaynayaan gaaladii isku ekaysiinayaan. waxay samaynayaan ugu horeyn ciddiyaha ayay daysanayaan kuwa qaar. timaha ayay dabanayaan, timaha inta daystaan ayay dabtaan. waxay isku ekaysiinayaan dumarka. waxay gashanayaan faraantiyaal dahab ah. waxay xiranayaan silsilado. intaba diinta islaamka ma ku farin. intaas waxaa loogu talagalay dumarka.
nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuu diiday in dumarka la isku ekeysiiyo waxaa kaloo ka mid ah nidaamka hadda timaha loo jarto oo diinta islaamka aad iyo aad u khalafsan nabi sallallahu alayhi wasallam arintaasi wuu diiday nahyi wuxuu diiday oo xaraam ah hadaad samayso dambi waxa kugu sugan nabi sallallahu alayhi wasallam amarkiisa waa diiday iyo madax adeeg kibir kugu jiro adigoo maalin walba lagu dhahayo madaxan qaabkan u jiran yahay maxay tahay iska dhaaf maxay la waxaan ku dayanay dad gaala ah muuqaalka dhalinyarada maanta 80% uma eka muuqaal muslimiin ah waa dareemi karnaa cid aan maanta oo aan gardareysanayna male magaaladii waa loo jeedaa madaxii qaabku u jiran yahay kaanahu ru'uusu shayaatiin madaxyo waaweyn oo kor u sii jeedo meel ay u socnin aan la garanaynin hoos ka jaran wiligeena ma arkin maxaa yeelay gaaladii noocaas u jaratay annagana waxaan u maleynaa horumarka inay ku jiro gaalada inaan ku dayano nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay annaga naga mid ma ahan qofkii isku ekeysiya dad aan muslimiin ahayn waxaa kaloo ka mid ah dhalinyaradu waxyaabaha ay sameynayaan dumarka ayagana waxay isku ekeysiinayaan ragga ayaamahan dambe waxaa soo baxeen dumar cimaamado u xiran waa yaabnay cimaamadihii ragga loogu talagalay gadguduudka ayay xiran yihiin sabirey ku soo galayaan video isku duubayaan weliba ma qarinayaanoo social media la soo dhigaa macnaha diinta waa khilaafay yaa wax iga qaadi kare u dhigan tahay yaa wax iga qaadi karo anaga waxaan dhanayaa wax iga bedeli karo sooma saas waay ay ka dhigan tahay waa laba dambi adigoo diinta islaamkii khilaaftay dabeecadihiisa iyo madax adeeg kugu jiro culimadii maalin walba munaabirta ka qeylinayaan culimada inay wax sheegaan ma ahay wax kale ma awoodaan ma way awood ma leh dadkaas inay gacanta ka ila aadaan laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii munkar arka gacantiisa ha ku bedelo taas ugu horeyso gacan ma leh gacanta waxa iska leh mar walba maamulka wadanka ka taliya mar walbana waa ka codsanaa hadana waa ugu dareynaa inay noo sameeyaan hay'ad ama urur ka shaqeeya munkarka inay zuuliyaan wanaagana farto waa lagu liibaana wallahi waxa aan raadinayno oo meelaha aan ka raadinayno waxa ka fiican in la sameeyo dhowr culumo oo ninkii arkay madaxiisa nooc u jiran yahayna lagu bilaabo fiir lagu bilaabo maxaa yeelay sheeko waa la daali markaan hadaa la hadashin wuxuu ku leeyahay sheekho adiga madaxaan saan u jiran maseer ma ka haayo timaha camada ku bixi waayay anay isoo baxeen iga leexano adiga jees waay diinta hadii lagu sheego oo hadal xun ku soo jawaabto kibir waay nabi sallallahu alayhi wasallam kibirku wuxuu ku sheegay waa xaqo la diido xaqo lagu sheegay aad ka santaagto dumarka ayagana waxay sameynayaan dhar waxay soo xiranayaan khafiif ah magaalada soo aadayaan waliba guryahooda ku joogi maayaan magaalada soo aadayaan waliba ma hadda ayaamahan dambe wax kala qarsan male magaalada galabtoo kale hadaa liida aado waxaad leedahay wadanka intee joogtaa adiga Chicago ma joogtaa mise New York xeebta liida markay joogto waa shakineeba adiga marka soo baxid meelaha soo gaartay islaada xamarjaba imaaday Soomaaliya joogtaa qaawanaanta hal qof ka hadlaysa male waa la isku sabiraa nin inaad ajnabi kala ah isku dhagan gabar surwaal wadata xeebta liida taagan waalidkeeda guriga u jooga sabirkay soo gasho waalidkay u geeyna waa fiirina ku soco waa saxantahay uu leeyahay saanan kaarawa wadanka waxaad la haysataa casriga la haystaa uu leeyahay labadooda maalinta qiyaamo naarta lagu shidaa إلهي محوليها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نار توحالغو شدا دب يدبحان نار تقولغو شدا الله نغا مدغو هدان ربنا إن نار تكبدبادنو بدبادكينا وحو كجرا النبي صلى الله عليه وسلم آن أو إكانو موقالكيسا آن يلانو دارك سيدو أقادن جري آن أقادنو داركان لديريسانايو دولك لجيدايو دين تمقبتو إنكستو هدا إيه بابا adayba faashiyonka uu galay surwaal gaab in la qaato wixii iska baaba'ayaan saas ay tahay haday ay ka ahaa lahayd niyo nabigaaga in isku ekeysiinaysid ajra ka heli lahayd wixii waa needaba gidismeemba surwaalkii waa gaabsanay sax waay dhalinyaradii surwaal gaaban ay wataan hadda
weliba surwaalka waxaa la geeyaa harqaanka waa la soo gaabiyaa maxaa dhacay CR7 iyo surwaal gaaban wataan nabigaaga ma ku dayaninba adiga laakiin haddii qalbigaaga ee kaaga jirto nabiga sallallahu alayhi wasallam marada wuxuu ka qaadan jiray canqawga korkiisa ajra kugu soconaayo laakiin DJ Khalid ku dayatay maxaa kugu soconaayo dambi isla wixii aa samaysay waaye DJ Khalid gar ma laho dadkii qaano garweyn uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam garweyn uu lahaa nabiga ku daya ajra helay kan ku daya dambi helay mala badbaada ya sheekh ilaahi wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ku dayashada wanaagsan waxay ku jirtaa nabiga in la raaco nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laba nooc oo ahlu naar ah weligeega noocooda ma arkin يا رسول الله وحيري قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس وعدد أولوتا dadka gardareysanaya hadaan ul wadanina wax kala wado dadka aad dhibeysid mashaqo iyo dhibaato aad ku haysid iyo dumar asturan hadana qaaban maanta u jeednaa gabadhii ma qaawno dhar la'aan ma aha dhar way wadataa laakiin dharkeeda wuxuu la mid yahay ayadoo qaaban oo kale markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam kuwaas la yadkhulna aljanna janna ma galayaan horta hasaysan sugin wala yajidna riihaha jannada arafteeda xitaa ma helayaan وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا جنة عرفت هذا وحالة هلا مسافة أنت أصلك على فوقيا مال جنة حتى أكثر من الجينا وأقوى النبي صلى الله عليه وسلم خلافي أوامر تيسا رجع وحواجب كؤة أو دمرك لا شيء أما قبا مسؤولية دودي إنك صوبحان إله سبحانه وتعالى وحوليها الرجال قوامون على النساء رجع أيجا معمولة دمرك قبل حاسكا هدي أراسي أسعته أراس كاسي هدي منكر إفسهات لجوهايو قاونا نشني إكجرتو وديدسا متجي سيدا لذا هدي أمرك يديدو وركاس وركلواي قال يرو دمرك أو مانتا هجانك إذن قبتي إذن كأنه هجانك خوتينا أهد إلهي وحوليه هجانك قبتا dumar fara badan oo aroosada ku qaaqaaban oo la sabiranayo xaasas waay ragay ka soo tageen guryaha joogo dharka ay wadato ninkeeda u soo gaday ord arooska tagu leeyahay maalinta qiyaam wax walba la isweydiina wax walba waa fududeysanay wax walba waxaan ka dhiganay caadi waay markii naarta madax lagu geliyo caadi waay markii إله نارت هنيو كريو أعماش النارت لو قلايا جعنتن كوهينا والله الله نجبت باليو أعماش النارت أنكو قلي لهين أنا قال لعكتنا كسو قدرنا ولي بقى جعنتنا حتى عندنا قص بيس ماله جعنتنا كسو قدرنا قريه نويا لا جبت هذا أراسي هذه أبو أركان وسفي عملي وأركاي وخاخابن يسوقت والو أو سوقته أراسي تجي حفلة تجي راليات كتهاي إله لجبقه نبي قال وصليو صلوا وسلموا على نبيكم المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة